بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد آد بيدي السلامي meel kastoo idilha intiin joogtaan oo hadal macnaha indhaha la maanta waxaan ku guda jirnay howlaha khayriga iyo barnaamijkeena Hafakaab hadda waxaan la joognaa oon caaniyo xafaayadii sidnay ilmo ka mid ah caruurta baahiya gaarka qaba inuu dhaqdhaqaaqna danne la macnaha indhaha la habeen hore yani waxay ahayd habeen warwar iyo naxdin maaragtay aan wallahi la gami waaye dadku waxay is weydiinayaan talo maxaa yani ay ka warwareysay ku dhacay laba indhoodoo maaragtay isku meen keenin maan gamin waa markii laygu lahaa gadar ayaabaa gantaala lagu qaraacay way igaga naxdin badneed in la idhaahdo Somaliland baa wax soo gaadheen amase madaxda Somaliland baa wax soo gaadheen aad bay igaga naxdin badneed dad badan bay is weydiinayoo layada halkan ay ku nooshahay madaxdeedii joogta because bay gabadhan sidaa u leedahay laakiinse waxa kuu sheegaya gadar laftirkeeda walaalkii baa jooga oo ku nool wiilkii curadaydu dhashay shaadiye sharaf baa jooga kama nixin waa jiirkeygii waxaan uga naxay uga gami waayey in ilaahay u baryaayay inay beledka aanay waxba aanay soo gaadhin waxa weeyaan waxa joogta maamo aad noogu qaaliya waxa joogtay Ifraax Maxamed Ciid waxa joogtay Ifraax Darajo Ifraax waa hooyada ummadda muslimiinta amba hooyada ummadda Soomaaliyeed baan oran karaa maamada waxaan ku masaalo ma garanayo waa maamo yani kaalin weyn ugu jirta dadka masaakiinta ah amba si dadka la hilmaamsan yahay waa maamo aan kamaradaha isku soo dhigin yadu isa soo sheegin waxay bixinaysana aan sheegin balse anigu aan aaminsanahay siday tahayna ay tahay inay iyada kamaradaha ilaahay ay hayaan maalmaha ka mid oo looga baahi badan yahay maantana loo soo bandhigi doono maamo Ifraax waxay ragga qabo u dhaantaa kumaakum haween ah oo haysta ubadka baahiyaha gaarka qaba waxay hooyooyin u tahay kumaakum ubada uu ka mid yahay maanta Mustafa Bartaajiifa waxay aabooyin u tahay kumaakum ubada waxay gacanteeda ku haysaa ubad baahiyo gaar qaba oon aabiyo hooyo toona lahayn oo labadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhaliyayba uu ka horreysiiyay oo maaragtay agoon iyo rajaba ah Ifraax maanta haddii la idhaahdo waxaan odhan karaa iska bedda xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ee aan ku noolnahay yacni dhammaan intay Soomaali degta iyo Carabba waa qof dadka jilicsan amase dadka naafada amase danyartaba u adeega masaajidda ciidda ka fara badan bay dhistay madaariis bay dhistay ubadka yaryar bay quudisaa maamadaasi haddaba waa tee Ifraax Maxamed Ciid waa mas-uulka sare ee mu'asasatu An-Nuur Al-Khayriya waa hooyaday ilaahay dartii ayaan isku baranay wax maanta gaaran hooyanimada ilaahay dartii aan ahaynan odhan karo waxaasan isku nahay ma jirto wallahi saan uga naxay ubadkaan dhalay hadday joogaan waddanka ugama naxeen waayo waa qof intaasoo qowmiyadood ay ku xidhiidhsan yihiin ilaahay waxaan ka baryayaa Ifraax geeridii disha geedkeeda habo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dad badan ayaa ku xidhan oo maanta hadday teedii noqoto waxaan ku leeyahay ilaahay uu xaalkooga ogaanayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada iyo durriyadeeda iyo familkeeda toona daaye aana xataa beledkeeda ay ku nooshahay meeshay cagta saarto toona ilaahay masiibo ka hayo waxaan doonayaa maamada inaad igula soo ducaysaan in ilaahay labadeedii waalid way dhinteen naxariistii janna Allah ilaahay uu ka waraabiyo iyada iyo familkeedana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xifdiyo meeshay degan tahay iyo meeshay cag saarto toona ilaahay wax dhibaato iyo wax mushkilada toona aanu tusin aad bay idin salaamaya intaasaan rabay inaan idinla wadaago waar Ifraax ku dayda waxaan odhan karaa anigu waa dadkii jannada ifka lugeynaya maama Ifraax ha lagu daydo insha Allah biidnillaahi kariim oo adigana aan ku soo ducaynayna ilaahay kurbaad iyo kurba aakhiraba ha kaa faydo aad iyo aad bay idin salaamsanaa